xaalad adag bay Puntland ku jirtaa ay keli ku tahay. Puntland waxay go'aansatay iyada iyo dadkeeda in isku tashadaan. Ciddii wax ku biirisa diidi mayso way soo dhaweynaysaa. Laakiin cid baa waxna taraysa gacmaha u laaban mayno. Wax Puntland intaa ka taageeray ma leh xabad kaliina Allah ka dhigay. Waxaan rabaa halka fariin inaan uga diro qurba joogta reer Puntland ee ku howlan siday u garab istaagi lahaayeen inay soo dedejiyaan howlaha ay ku jiraan shirarka badan intay joojiyaan ficil u bedelaan xaalad adag bay Puntland ku jirtaa ay keli ku tahay. Dagaal weeye waqti buu qaadan karaa howl culus baa socota kharash aad u fara badan ayay dawladdu ay ciidanka la garab taagan tahay haday tahay saanad haday tahay sahay haday tahay dhaawac iyo daweynteeda dhul aad u adag oo aad u dheer oo runtii logisticadu ay xiriiri tahay weeye waxaan u baahanahay garab istaagiin Puntland waxay go'aansatay iyada iyo dadkeeda in isku tashadaan ciddii wax ku biirisa diidi mayso way soo dhaweynaysaa laakiin cid baa waxna taraysa gacmaha u laaban mayno waxaan insha Allah taala uga mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay howlgalkaas wadamada qaybtood oo runtii marka loo fiiriyo hawsha socota waxyaabaha qaybtood muhiim ah sida duqeymaha laakiin hawl maxduud ah marka loo fiiriyo nafta la hurayo ciidanka ma jooga agabka yaala rasaasta taala gaadiidka yaala dhaawaca la guraayo wax Puntland intaa ka taageeray ma leh xabad kaliina Allah ka dhigay marka waxay muujiyeen reer Puntland inay isku tashadeen isku tashigaas inuu yahay midka guusha soo dedejiya waxaan si gaar ah ugu mahadinayaa dhalinyarada geesiyaasha oo iyagoo dhaawaca qaybtood ka xun yihiin in ay ka baaqsadeen hawshaas soo afjarideeda qaarkood iyagoo dhaawaca aan ka arkayno inay jeclaan lahaayeen inay goobta ku noqdaan inta joogta iyo inta jirtaba isku niyad inay tahay waxay farax gelinaysaa waxay muujinaysaa cadawga cimrigiisa inuu soo gaabtay